olole nadaafadeed oo looga hortagayo nadaafad darida ka dhalan karta qashinka iyo sidii xaafadaha magaalada Kismaayo looga soo qaadi lahaa qashinka ayaa waxa wada shirkadda Waamo oo ka shaqeysa nadaafadda iyo soo celinta bilicda magaalada. tan iyo intii ay shirkadda bilowday ka shaqeynta nadaafadda ayaa magaalada Kismaayo waxay noqotay mid ifaysa iyadoona qashinka ay ka aruurinayaan magaalada ay geynayaan god weyn oo loogu talagalay qashinka oo ku yaala duleedka magaalada Kismaayo. maraan booqanay goobaha qashinka la geeyo iyo xaaladda ay ku shaqeeyaan shaqaalaha shirkadda Waamo. waxaan ka wareysanay gudoomiye ku-xigeenka shirkadda Waamo qaybta nadaafadda Cabdirasaaq Faarax Dalal waxa uu yiri waa mahad celinayaa TV-ga Jubbaland saad ogtihiin shirkadda Waamo waa shirkaddii ay dawladda hoos u xil saartay nadaafadda iyo bilcog soo celinta magaalada Kismaayo xilliga laga soo bilaabo ilaa hadda waxaan qaadnay talaabooyin dhowr ah. talaabada goobaad ee qaadnay waxay ahayd wacyigelinayo dadka iyo bulshada reer Kismaayo. sidoo kale waxaan wacyigelinay tababarana aan siinay shaqaalaha u shaqeynaya company-ga Waamo shaqaalahaas oo ka koobnaa qaybta nadaafadda iyo qaybihii kale ee xafiisyada. ilaa hadda company-ga Waamo qaybtiisa nadaafadda wuxuu ku guuleystay in uu soo nambariyo guryaha magaalada Kismaayo intooda badan mana istaagin mid ayada way socotaa ilaa hadda. waxaa jira shaqaale sidoo kale ka shaqeynaya dhanka wacyigelinta iyo dadka in la baro shaqadan. waxaa jirta iyadana sidoo kale shaqaale ka shaqeynaya nadaafadii iyo gaadiid la diyaariyay. gaadiidka iyo shaqaalahaas waxay qabanayaan shaqooyin kala duwan. sidoo kale waxaa loo sameeyay jadwal xaafadaha magaaladu ka kooban tahay dhamaantood. waxaa jira goobo si gooni ah loogu shaqeynayo sida goobaha gaarka ah, goobaha dawladda, xafiisyada, goobaha caafimaadka, iskuulada, goobaha sidoo kale maqaayadaha, hoteelada iyo goob kasta oo qashinkeedu joogto yahay. jadwalkaas wuxuu dhigan yahay sidan soo socota shanta xaafadood ee magaalada. waxaa jira 5 maalmood oo la kala galayo oo laga shaqeynayo gaadiid iyo shaqaale loo qoondeeyay xaafad kasta. maalinka Khamiista ah waxaa laga shaqeynayaa goobaha gooniga gaarka loo leeyahay oo ahaa sida goobaha caafimaadka, iskuulada, hoteelada iyo waxyaalihii la mid ah. sidoo kale waxaa laga shaqeynayaa maalin kasta suuqyada iyo goobaha ganacsiga dhamaantood. waxaa jira adeegyo aan bixino oo gooni ah oo ka baxsan shaqadan joogtada ah. cidiina soo dalbata oo na soo weydiisata inaan shaqaale iyo gaadiid soo diro waan u diraa gaadiidka iyo shaqaalaha xilli kasta iyo waqti kasta. waxaa jira hadda halkan aan joogno waa godkii qashinka oo meel u dhow. godka qashinka waxaa jira maalinkii 7 kaarika hadii la geeyo 70 kaariko waad garan kartaan culayska ay leedahay. waxaa jira cagaf la geliyo isbuuc kasta hal mar sifa ay wixii u ururiso oo ay godka ugu rido. isla markaa kuma fillo oo kaliya cagafkaas waxaa jira habab kala duwan oo aan u kala saaro qashinka. sidoo kale waxa iyaguna nooga waramay qaabka ay u shaqeeyaan qaar kamid ah shaqaalaha shirkadda Waamo. waa kuwan iyagoo inooga warbixinaya. anaga magacayga Ibrahim Cali Maxamed. shaqada aad iyo aad ay wanaagsan tahay nadaafadda Kismaayo. shaqadan aad ay u fiican tahay si wanaagsan aan u qaadnaa wixii aad ay magaalada yaalo wixii islaamaha guryaha ka soo bixiyaan dhan waa fiican tahay shaqada in laga wada shaqeeyo fiican tahay nadaafadda iska inaad ka shaqeyso xataa way fiican tahay inkastoo lacag ku qaadanaysid inaad shaqada wanaajiso waa fiican tahay farqi weyn ayaa u dhexeeya awalka hore shaqada qashinka nidaamka mayna ka seen dad hadda nidaamka ka saayaan shaqada qashinkaas oo diyaarsan ay maanaysa waa qaadaysa oo ku tuuraysa qashinkaas oo gudinaysa. shirkadda Waamo oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta iyo nadaafadda ayaa magaalada Kismaayo ka wado barnaamijyo lagu horumarinayo bulshada iyo deegaanka.